nin ajnabi ah ee caddaan ah ayaa wuxuu qalinka u qaatay in uu barto afkeenna hooyo ee Soomaaliga. Wuxuu la xarbiyaba sanado badan ayuu baranayay afka Soomaaliga. Maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu ku dooday ninkii inuu xifdiyey oo uu bartay dhammaan erayada iyo weedhaha ku jiro afkeenna Soomaaliga. Nin garyaqaan ah oo meesha ka ag dhowaa ayaa ku dhahay ninkii, iska fiiri hadalka aad leedahay niyow. Ninka caddaanka ahaa hadda si kalsooni leh u fiiriyey ayuu wuxuu yidhi, waan hubaa warkayga oo loo laaban maayo oo waan xifdiyey dhammaan afka Soomaaliga. Ninkii garyaqaanka ahaa asagoo imtixaan ka qaadahayo ayaa waxa uu u yeeray wiil yar ee goobta ka dhowaa kuray. Wuxuu yidhi, isbarbar istaaga, waxaan inku dhahana hal mar wada fuliya. Haye ma diyaar baa tihiin? Haa, noo bilow ciyaarta. Ninkii garyaqaanka ahaa ayaa wuxuu iska soo jaray cagaha wax ka daya, yacni cagaha wax ka daya eraygaas ayuu isticmaalay. Wiilkii yarka ahaa ayaa dhowr bootimo isdaba dhigay, orod ayuu isi sii daayo ilaa uu ka bidhaan qarsaday. Ninka caddaanka ahaa hadda fadhiistay ayuu kolba cagihiisi kolba tu fiiriyaa, calaacalihiisuu fiiro u qaatay. Ninkii garyaqaanka ahaa hadda ku qoslay sheekada ka dhacday meesha ayaa wuxuu yidhi, hadalka aan ku idhi maxaad ka fahantay? Ayuu ku yidhi ninka caddaanka ahaa. Ninka caddaanka ahaa wuxuu yidhi, waxaan u fahmay inaad tidhi cagahaaga fiiri, waa aniga amarka qaatay oo dee calaacalahaygii fiiro u qaatay. Meeshaas waxaa ka caddaatay ninkan caddaanka ahaa inay jiraan erayo badan oo uusan gaarin fahankiisa. Kolley xigmadda wax badan baad ka fahantay. Afkeenna Soomaaliga anaga u dhalanay baa erayo badan aqoon weyno. Maxaad u malaynaysaa ninka is yidhi waad xifdisay oo qalinkaad ku koobtay? Maasha Allah, hala dadaalo insha Allah, aqoontu way fiican tahay.